أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ولقمان halkaad iga daawanaysaana waa Luqmaan. soo dhawow haddaad nagu cusub tahay subscribe dhe sidoo kale like garee commentina naga soo bixi wadadii 1k baan ayaan ku soconaa 1k na gaarsiiya idigaa na gaarsiin kara meeshaan rabno. su-aashiina maanta ama barnaamijkeena maanta waxa weeye laba nin ayaa isku haysta sidan tan haddii inaad naag farxadad geliso aad doonayso sidan u samee buu ka hore leeyahay kan dambena sidan u samee buu leeyahay bal waan isla eegi doonaa labada nin markaad ku raacsantihiin commentigaad nagula wadaagi doonta aniga laftigayga fikradayda ka dhiiban doonaa. ka koowaad haddii aad rabto inaad naag farxad gelisid waa inaad dahab u gadaa waa inaad guri u gadaa waa inaad casho u wadaa maya walaal wuxuu leeyahay wiilkaas wuxuu yidhi haddii aad rabto inaad gabadh farxad geliso waa inaad dahab u gadaa waa inaad casho geysaa waa inaad guri u gadaa. ma kula tahay adiga haddii aad gabadha casho geyso sidoo kale aad guri u gado dahab u gado ma farxad gelisa? aniga ahaan haddii aan isweydiiyo yaa waas farxad gelisay koos qofku dee wuxuu iskaga baahan yahay mar walba inaa wax loo iibiyo. dumarkuna waxay dadkooga dumarka kale ugu faanaan bay marka badanka jecel yihiinba taasoo ah inaad dahab u gado inaad guri u gado inaad habeen dee hoteelada geeshood cuntay soo cunaan. bal ninka kalena isla aragna wuxuu isna leeyahay nin iyo raygiisa aniga raygayga yaa lagula yaabay halaasna ma u baahantid lamadan shay la u baahan tahay wallaahi haddaad guriga ka hagaajisid ducoda helaysid iyo farxadda qalbigeed galaayo ilaahay laa og. asxaabey subhanaa sallallahu calayhi wasallam sunnadiisa raacno. ninkan wuxuu leeyahay guriga la hagaaji markaad shaqada ka soo noqoto guriga la hagaaji waxay qabanaysaa la qabo haddaad guriga ka hagaajiso farxad bay dareemaysaa. nabiga calayhi salaatu wasalaam isagu waa ula shaqayn jiray xaasaskiisii adigoo hataa xaasaskaaga la shaqaynaya miyaanad gurina u gadi karin dahabna u gadi karin habeenaad casho geyn karin? waxaan u leeyahay labada nin way isku soo dhow yihiin wax saas iskuma jiraan labadaba waa loo samayn karaa. inkastay mar walba muhiim tahay inaad gabadhaada kala qabato shaqada guriga maxaa yeelay mar walba wax lama iibin kara dee. marka haddaad nagu cusub tahay meeshan like garee commenti ka soo bixi intaan videoga xiga kulmina dhammaantiinba amaana allah.